السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كسر دمada يوتيوب channelka haddii aad halkan ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar kusoo dhawaada wararka cusub iyo ciyaaraha maanta waxaan isleegi doonaa suuqa kala iibsiga ciyaarihii Premier League oo la ciyaaray daraad iyo shalay iyo maanta la ciyaari doono oo maanta ay qabaan Forest iyo Tottenham. Forest oo ahayd kooxda u digaltameysay top 3 oo maaragtay kulka dhexdan kusoo dhibaysay Liverpool hata looga cabsaday inay kooxda ay ka qaada markii ay Premier League bilaabanay oo 20 game la maray hadda laakiin inkastoo marada meel xun ugu dhacday cawada iyadoo lambarka afraad ay la qabtaa Chelsea iyo Aston Villa oo lambar 6 Aston Villa lambar 6 iyo Chelsea oo lambar 4 iyadoo lambar 5 ay isla qabaan 57 point 57 point ay isla qabaan haddii cawada laga reeyo oo ay Tottenham ka reeyso waa sii hoobanaysaa marka haddii cawada ay reysana 60 ay tagi oo lambarkeeda hore kusoo noqonay lambarka saddexaad shalay waxaa ciyaaray kooxaha Arsenal Manchester United oo laga badiyay oo ku dhacday guuldarrada ugu badneed ugu weyneed FA Premier League eragooda oo 15 guuldarro ka qaadatay Premier League seasonkan oo ay guuldarrada ugu xumeed laakiin hadda markii la eego ayagoo ku fadhiya booska dambe booska 13 14 joogo waxaa la dhahay markii la xisaabiyo xisaabaha la isku dhuftay mathematically maxaa waaye championship ma aadayiin waa ku sigteen laakiin ma aadayiin halahay markii oo maaragtay hadda waa badbaadeen waxaan waa Manchester United waxaa waaye kooxda u cadcad inay qaadayso Europa League oo ku jiraan Atletico Bilbao idil horgeysay finalka iyo final oo u tagay haddii ay baxsatay ay u tagay soo baxsada Tottenham iyo Bodo kii soo baxsada ayada day ka soo baxsata Atletico Bilbao ka soo baxsata Bodo iyo Tottenham sidii la filayo inay Tottenham soo baxsanaysa la filaya Champions League asagana waxaa waaye waa lisaya oo maxaan ku dhahaa waxaa saadaasha la siinaya Inter iyo Barcelona kii final imada saadaasha la siinaya haddii aan ka hadalnaa dhanka suuqa kala iibsiga waxaa waaye kooxda Arsenal oo ka shidin maalmaha suuqa oo sheeganaysay Arsenal ayadana wax aan rabnaa ma daayaan wax ay keenaan ma lahayn wixii oo maaragtay waxa waaye waa rabaan laakiin inay keenan lama hubo balse ciyaariinta ay rabaan Nico Williams oo dabrorayaan ilaa ka iyo 3 bilood xiisi ay u qabeen qadka dhexe Spanish oo dhela Real Sociedad oo Subimendi xiisi ay u qabaan ay kana madayni wali waa xiiseynayaan hadda waxaa kale oo xiiseynayaan Atletico Bilbao midfielder oo dhela oo laha Sunset oo asagana ciyaaryahan fiican oo 15 gool u dhalay Atletico Bilbao iyo 4 caawin qaba xiiseynayaan strike la waxa waaye player ugu maqnaay loonka kooxda Chelsea player ugu maqnaay loonka Joao Felix oo joogay AC Milan waxa la loonkiisa waa dhamaan seasonkan inta dhamaana Juntan marka next season marka Joao Felix waxa isku soo biiraya kooxdiisa hore Chelsea waxaa asagana laga hadlay Jordan Sancho asagana dhamaanay loonkiisa ama hadda isku joogay Chelsea dhamaaday Chelsea first oo lagu heshiiyay haddii ay Chelsea ku dhamaa ay ku bankaysa 15 wixii kor ka jira ay soo gashay waxaa la way gadan kartaa hadda waxa waaye Chelsea waa soo gashay top 15 waa soo gashay Premier League marka way gadan kartaa haddii ay gadanayaan 25 milyan ay ka dhibaysaa oo siinaysa kooxda Manchester United haddii ay rabina waxa waaye 5 milyan ay dhibi oo maxaan ku dhahaa ay siin kooxda Manchester United oo Jordan Sancho Chelsea ku isku xiray marka haddii ay Chelsea rabto Chelsea joker 25 milyan ay ka bixin haddii kale Chelsea ay rabeen Manchester United isku noqon asagana kooxda Manchester United ayadana waxa waaye saacadii ugu dambeeyay waxa la sheegay Robin Amirum inay doonaya ciyaaryahanka Wolverhampton oo la Matheus Cunha oo ciyaaryahan Qatar seasonkan maaragtay si fiican u shaqulay oo caadi ugu soo baxay formation Robin Amirum maaragtay taamka hore ciyaartii hore oo dheelay kooxda garoonka Wolf lagu soo dheelay
waxaa la sheegay inay Robin Amrunas garabka haystay ciyaaryahanka Cunha garabka haystay oo wax u sheegay inaas keeno dambeed midig daafac oo qadka daafac dhexe ah oo center back iyo waxa kale oo iskeen rabaa striker meesha Hoyland la soo damiin weyn oo ku fashilmi marka waxa israadinaya striker waxa noqon kara Victor Osimhen waa rabaa waxa kale oo rabaa strikerkiisa hore Sporting Victor Yogres asagana waa raadinaya wow wixii ay rajaynayeen inay imaadayeen waa ay rabaan marka waxa ka dhacdoon lama ogo in la keen doon lama ogo marka waxa kale oo wararka maanta cusub oo la faafinaya Xavi Alonso coachki oo Bayer Leverkusen ayaa ku biiri doona la dhahay markii seasonka dhamaada kooxda Real Madrid Xavi Alonso oo ku biiraya Real Madrid oo Ancelotti iska tagay seasonkan Ancelotti oo ay rabta Brazil inay coach u qabto marka Ancelotti sida la sheegay waa ka taga marka Real Madrid targetkooda number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 waxa la dhahay waa Xavi Alonso last time kor waxa isdiiday Liverpool isdiiday iyo kooxda kale isdiiday si aas ugu biiro Real Madrid alay Real Madrid waxa way kooxdiisa xiisaas qabay team dream greenay in coach u noqdo Real Madrid hadan kor soo noqday under 14 soo noqday coach oo waxa way 26 ciyaar as u qabtay 25 wareeyeen xabada 26 xabada soo hertino draw ay galeen 159 goals kooxdiis maamul ay xireen marka way Xavi Alonso asagana waa nin weyn Xavi Alonso marka asagana waxa isku biiraya Real Madrid hawaas aano dhaytanka soo ay keensto mar heshiiskiisa la dhamay iyo ciyaaryahan kale oo raadinaysa jiraan midfield ay raadinaysa striker waxa la striker caadi oo number 9 ma haysata laakiin waxa la formation ko waxa la sugaa Xavi Alonso magisiima formation kiisa la sugaa waqtigaas ka bacdi maxaa la ay keenay daafacna waa raadsanayaan William Saliba oo waxa la asagana dhahay Arsenal jooga William Saliba ay doonayeen William Saliba xiisiisa ka bixeen Hudson ay doonayeen oo ciyaaryahankii Bournemouth daafac Bournemouth ay doonayeen asagana hadda waa ka bixeen xiisiisi marka daafacna waa doonayaan ishay ku hayaan dhahay marka Xavi Alonso magii aas kooxda ku soo biiray waxaas kule la dhisa oo la habeynaa dhahay intaas asxaab ugu dambeeyay waxa la sheegay goalkeeper hore legendkii oo Boca Juniors kooxda Boca Juniors inay isku geeriyooday maantaas geeriyooday isagoo 30 jir Hugo goalkeeper fiican Sanjiri waxa Sanjiri bandits weyn oo Shiringito oo bandits ka ahay waxa way marka saacadii ugu dambeeyay waxa ninkaas geeriyooday waxa kale oo gibdhi oo maxaa la jiray Mrs Somali Aisha Eko ayadana waxay ku baxday wareeg lixaad tartanka qaaradda Afrika gabdhaha oo Mrs Africa My name Aisha Usman Eko represent the beauty of land, the Horn of Africa, Somalia.